Bismillahirrahmanirrahiim. Kulan wacan wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararka warbaahinta walwal qodobada ugu doorka roonna waxaa qayb ka taliyaha ciidamada Niisa Fahad Yaasiin oo la sheegay in uu xiriir la leeyahay Al-Qaacida. Madaxweyne Trump oo ciidamada Mareykanka ka saaraya Soomaaliya inta uusan wareejin xilka. Haddaba maxay tahay sababta ka dambaysa in ciidamada Mareykanka laga saaro Soomaaliya? Maxay madaxtooyada maamulka Galmudug ka tiri mooshinka la sheegay in laga abaabulayo qoorqoor iyo dhaqdhaqaaqyo ka socda magaalada Muqdisho? Maxay ku micnaysay dowladda federaalka Itoobiya dagaalka ka socda gobolka Tigreega? dowladda Qatar oo ka hadashay heshiisyada Israa'iil iyo qaar ka mid ah dalalka Carabta. Qodobadaas iyo kuwo kale ayaa daawan doontaan ee ku soo dhawaada warkaas oo intaas ka faahfaahsan. aan ku bilownay daawadayaal wargeyska lagu magacaabo Washington Examiner ee ka soo baxa dalka Mareykanka ayaa qoray maqaal dheer oo kaga hadlayo xiriirka ka dhaxeeya taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya Fahad Yaasiin iyo urur weynaha Al-Qaacida oo ka dagaalama meelo badan oo dunida ka mid ah oo ay Soomaaliya ku jirto. Wargeyska ayaa maqaalkan ciwaan uga dhigay madaxa sirdoonka Soomaaliya waxay wada shaqeyn kala dhaxaysa Al-Qaacida ee sideen u maalgelinaa. Soomaaliya ayaa waxay ka mid tahay dalalka ay lacagaha badan ku bixiso dowladda Mareykanka sanadihii ugu dambeeyay. Mareykan ayaa waxa uu Soomaaliya ku bixiyay $100 milyan oo dollar bishii aynu ka soo gudubnay. safiirka Mareykanka ee Soomaaliya iyo wasiirka wasaaradda maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Beele ayaa kala socday heshiis lagu dhimayo deynta uu Mareykanku ku leeyahay Soomaaliya, iyadoona Soomaaliya markii ay gaarto marxaladda ugu dambaysa ee deyn cafinta oo ballan qaaday in uu ka dhaafi doono $1 bilyan oo dollar sida ay sheegtay safaaradda dalkaasi Mareykanka. maalgelinta ugu badan ee Mareykanka ayuu wargeysku sheegay inuu ku bixiyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, balse rajadii ay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ay ka lahayd ayaa u muuqanayso mid meesha ka sii baxaysa. Wargeyska ayaa madaxweyne Farmaajo ku tilmaamay mid haya dhabbihii madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Siyaad Barre oo lagu tilmaamo inuu ahaa keligii talis. ugu dambayna xilka looga tuuray qaab awood ah taasoo dalka u horseeday in uu noqdo qaran fashilmay. madaxweyne Farmaajo waa madaxweynaha Soomaaliya, balse ninka ugu awoodda badan dalka waa Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo ah madaxa hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Mareykanka. ayuu sidoo kale sheegay in uu maalgeliyo hay'adda sirdoonka taasoo Fahad Yaasiin u suurtagelisay in uu deeq toos ah uu ka helo Mareykanka, balse waxa uu sidoo kale tilmaamay in lacag uu ka helo dowladaha Qatar iyo Turkiga. maqaalka wargeyska ayaa lagu yiri marka dib loo raaco taariikhda Fahad Yaasiin waxay muujinaysaa inuu yahay ninka dowladda Soomaaliya ugu jira urur weynaha Al-Qaacida. qoraaga maqaalkan oo lagu magacaabo Michael Robin ayaa ka sheekeeyay taariikh nololeedka taliyaha hay'adda nabad sugidda Niisa Fahad Yaasiin, sida halka uu ku dhashay, goorta uu dhashay, waxbarashadiisii, hawlihiisii shaqo uu soo qabtay iyo xilkan ka hor. waxa uu sheegay in waqtigii uu ka shaqeynayay TV-ga Al Jazeera uu samaystay saaxiibo badan isagoo qaatay tababar ay bixiyeen sirdoonka qaranka. waxa uu sheegayaa inuu haysto baasaboor Kenyaan ah kaasi oo u suura geliyay meelo badan oo ay qayb ka yihiin dhulka inta badan maamulaan dagaalamayaasha Al-Shabaab. 2012 ayuu qoraaga maqaalkan sheegay inuu bilaabay inuu saameyn ku yeesho siyaasadda Soomaaliya isagoo wakiil u ah dowladda Qatar, diyaarna u ah inuu iibsado codadka baarlamaanka. 2016 ayay
Fahad Yaasiin u suurto gashay in taageeradii Qatar uu ku soo saaro Farmaajo, taasoo keentay in Fahad uu xilal kala duwan ka soo qabto dowladda madaxweyne Farmaajo, isagoona ugu dambeyn noqday madaxa hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya oo ilaa haatan uu yahay. Maqaalkan lagu daabacay wargeyskan ayaa eedeymaha loogu soo jeediyey Fahad Yaasiin waxaa qayb ka ah in uu ka warqabay weeraro badan oo gudaha dalka ka dhacay, canshuurta ay Al-shabaab ka qaadaan ganacsatada, iyo inuu lahaa amarkii lagu weeraray guriga siyaasiga caanka ah ee Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ay ku dhinteen ilaa 6 ka mid ah ilaaladiisa, iyo codad laga duubay saaxiibadiisa Qatar oo amraya weerar laga fuliyo dekedda magaalada Boosaaso ee maamulka Puntland. Maqaalka wargeyska ayaa ugu dambeyn loogu baaqay dowladda Mareykanka in ay gabi ahaanba deeqaha iyo caawimaadda ay ka jarto dowladda Soomaaliya. Eedeymahan wargeyska Washington u soo jeediyey taliyaha NISA ayaa ku soo aadaya waqti si weyn isaga iyo hay'adiisa loogu eedeynayo in ay faragelin ku hayaan doorashada dalka, iyo in guddiyada doorashooyinka ee la soo magacaabay ay xubno badan ugu jiraan, balse waxaa xusid mudan in maqaalkan lagu daabacay wargeyska Washington ee eedeymaha culusna loogu soo jeediyey taliyaha hay'adda NISA uusan weli ka hadlin isaga iyo hay'adiisa. Sida lagu daabacay wargeyska New York Times ka soo baxa dalka Mareykanka, madaxweynaha dalkaasi Donald Trump ayaa qorsheynaya in ciidamada ka jooga dalalka ay ku jirto Soomaaliya uu kala baxo inta uusan xilkaasi wareejin. Dalalka sida gaarka warbixinta wargeyska loogu xusay ayaa waxay kala yihiin Soomaaliya, Ciraaq, Afghanistan, waxaana lagu wadaa in arrintan ay dhaqan gasho 20 bisha Janaayo ee sanadka 2021 inta uusan madaxweyne Trump xilka ku wareejin ninka doorashada uga guuleystay ee Joe Biden. Ciidamada ku sugan dalka Afghanistan ee ka socda Mareykanka ayaa tiradooda lagu sheegay 2500, waxaana kala bar dib loogu celin doonaa dalkooda Mareykanka. Dalka Ciraaq ayaa dowladda Mareykanka waxaa ka jooga ciidamo gaaraya 3,000 oo askari, waana laga saari doonaa inta aysan dhicin xil wareejinta madaxtinimada dalkaasi Mareykanka. Dalka Soomaaliya ayaa dowladda Mareykanka waxaa ka jooga ciidamo qiyaastii lagu qiyaasay 700 oo askari, kuwaasoo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ka caawiya tababarada iyo howlgallada gaarka ee sida gaarka uga dhaca qaybo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya. Ololihii madaxweyne Trump uu ku galay doorashadii 2016 ayuu ballanqaadyadiisii waxaa ka mid ahaa in ciidamada Mareykanka uga maqan dalalka dibadda ee colaaduhu ka socdaan uu dib ugu soo celin doono dalkaasi Mareykanka. Madaxtooyada dowlad goboleedka Galmudug ayaa beenisay mooshin ka dhan ah madaxweynaha maamulkaasi Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo laga abaabulayo magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Agaasimaha warfaafinta madaxtooyada maamulka Galmudug Cabdiweli Jaamac Barre oo la hadlay warbaahinta ayaa faahfaahin ka bixiyay kulamo saacadihii la soo dhaafay uu madaxweynaha maamulka Galmudug magaalada Muqdisho kula qaatay xubno ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Qoorqoor ayaa Muqdisho kula kulmay xildhibaanada laga soo doortay deegaanada maamulka Galmudug, madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed, iyo mas'uuliyiin kale oo saameyn ku leh siyaasadda dalka Soomaaliya. Cabdiweli Jaamac, agaasimaha warfaafinta madaxtooyada maamulka Galmudug, ayaa sheegay in kulamadii xalay ka dhacay magaalada Muqdisho looga hadlay arrimaha doorashada Soomaaliya iyo cabashooyinka dhinacyada qaar ka qabaan guddiyada magacaaban ee doorashada loo soo magacaabay. Agaasimaha ayaa beeniyay wararka sheegaya in mucaaradku ay cadaadis saareen madaxweyne Qoorqoor iyo in mooshin ka dhan ah madaxweynaha laga abaabulayo magaalada Muqdisho. Saacadihii la soo dhaafay waxaa baraha bulshada lagu baahinayay in madaxweyne Qoorqoor laga wado mooshin xilka looga tuurayo kadib markii siyaasiyiin mucaarada ay ka hor yimaadeen xubnaha guddiyada doorashooyinka ee dhowaan uu magacaabay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, sidaasna ay u abaabulayaan mooshinka ka dhanka madaxweynaha maamulkaasi. Dhowaan 12 musharax oo u taagan qabashada xilka madaxtinimada dalka Soomaaliya ayaa qaadacay guddiyada doorashooyinka ee magacaaban, kuwaasoo isugu jira heer federaal iyo heer dowlad goboleed. Inkastoo Jubbaland iyo Puntland
aysan weli soo magacaabin xubnihii ku mateli lahaa guddiyadaasi, ayagoo saluug badan ka qaba hanaanka ay wax u wado filla Soomaaliya ee dhanka doorashada ku aadan, oo ay sheegeen in lagu lug leeyahay guddiyadaasi. Wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar ayaa sheegay in xiriirka ay dalalka Carabeed la sameeyeen Israa'iil uu manjaxaabinayo dadaalada lagu doonayo in Falastiin ay dal ku noqoto, balse waxa uu sheegay in dalalkaasi ay u madax bannaan yihiin inay sidaasi sameeyaan. Dalalka Imaaraadka Carabta, Baxrayn iyo Suudaan ayaa bilihii dhowaa go'aansaday in cadaawadoodii Israa'iil kala dhaxaysay meel iska dhigaan oo ay xiriir wanaagsan u abuuraan kadib heshiisyo uu ka shaqeeyay maamulka madaxweynaha Mareykanka ee Trump. Hogaamiyaha Falastiin ayaa ku eedeeyay dalalkaasi khiyaano, halka saraakiil Mareykan iyo Israa'iil ay sheegeen in dalal kale oo Carabeed ay dowladda ku jireen. wasiirka arrimaha dibadda Qatar Sheekh Mohammed bin Cabdiraxmaan Al Thani ayaa yiri waxay ila tahay inay wanaagsanaan lahayd in la helo carab midaysan oo danaha Falastiiniyiinta ka dhigta mid koobaad, soo afjartana haysashada Israa'iil. wasiirka ayaa hadalkaasi u sheegay madasha Global Security Forum, waxaana uu sheegay in kala qaybsanaantu aanay caawinayn dadaalada wadajirka ah ee ku aadan in Israa'iil la xaajooto Falastiin isla markaana la dhameeyo khilaafaadka tobanaanka sano ka dhaxeeyay labada dhinac. balse Sheekh Mohammed bin Cabdiraxmaan Al Thani ayaa sheegay in dalalka heshiiska la gaaray Israa'iil ay yihiin kuwa marka ugu dambaysa go'aan ka gaara waxa u wanaagsan dalalkooda. wasiirka arrimaha dimuqraadiyadda ee dalka Itoobiya ayaa sheegay in dagaalo sokeeye aysan ka socon gobolka Tigray, halkaas oo haatan ka socdo dagaal u dhaxeeya ciidamada dowladda federaalka Itoobiya iyo xoogagga lagu magacaabo TPLF. wasiirka ayaa warbaahinta u sheegay in uusan dagaalkan ku fidi doonin gobolka. shacabka Tigrayga nalama dagaalamayaan, waxay ku hoos nool yihiin maamulka militariga ee kaligitaliska ah ee lagu magacaabo TPLF-ka. waa sababta aan u leenahay waxaan ma ahan dagaalo sokeeye, waa arrin laga naxo in shacabka laga barakiciyo isla markaana lagu qasbo inay u qaxaan dhinaca Suudaan. waa tallaabo ay TPLF-ku ku doonayso inay ku soo jiidato indhaha caalamka ee ku saabsan dagaalka, ayuu yiri wasiirka dimuqraadiyadda dalkaasi Itoobiya. arrintani ayaa waxay ku soo beegmaysaa xilli madaxweynaha Uganda iyo madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ay ku baaqeen in labada dhinac ay wada hadallo yeeshaan si dagaalka loo joojiyo oo maalmihii ugu dambeeyay halkaasi ka socday, iyadoona dad badan ay halkaasi ka qaxeen. guud ahaan daawadayaal warkii aad kala socoteen warbaahinta Walwal xiligan waa naga intaa. waad ku mahadsantahay daawashada warkeena.